qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabar aad u xanaagtay ninkeeda ku qaylisay markuu rabay inuu guriga ka baxane albaabka hor istaagtay oo kuleetiga ku dhegtay tiri wallaahi billaahi tallahi meeshaan kama baxaysid adigoo ifurin. ninkii wuxuu yiri war idaaha dhowaan ku furaahe markaasii tiri lagama yaabo waa inaa hadda ifurtid. ninkii marka wuxuu ku yiri waa ku furay. gabadhaas maxaa ku qasbisaas inay samayso? waxay samaysay sax miya? ninkana wuxuu sameeyey sax miya? ha iloobin su-aalooyinkaas inaa kasoo jawaabtid. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا نجوتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبيو قصة قصة وحاجري جرنين دالا يرأه أخبار شريو دمي حوغوه شقيستي قبرو دونتي قبدي إسقور سدين ويوذي جوغين وحاول شالعنو جيري ودسي ما شاء الله habeen ada kamid ah gurigu ka soo daahay. waxay ku tiri maxaa ku soo daahday? wuxuu ku yiri shaqan jiri. waxay ku tiri lagama yaabo shaqo waqtiga laguma maqnaado. wuu dhaartay wuxuu yiri wallaahi billaahi tallahi shaqan jiri ee faraha iga qaad. way diiday. wuxuu yiri wallaahi shaqan jiri intaas ka badan waxaan kugu dhahay ma aqaani. almuhim ninkii wuu ka tagay qolkuu tagay qol isku soo xiray sidii uu ku seexday habeenkii koobaad. subaxii soo kacay qolkii fiiriyay xaajiyadii cunugeedii waa jiifaan. quraac yar uu samaystay uu iska baxay. duhurkii uu soo noqday guriga qadab ma lahan. almuhim xaajiyadii yiri maxaa kugu dhacay? markaas meesha xali jirtay ii sheeg. markaasuu yiri wallaahi billaahi tallahi shaqaan jiray haddaa rabtidna waa ku geyna. almuhim muran dheer kadib gabadhi sidii ku rumaystay waxay tiri haye waa ku rumaysana ee mar kale ha soo daahin. ninka wuxuu yiri shaqaan u baxaday shaqadii ugu qasbanaato waa soo daaha adina ogow ina cudur daar. haddana maalin kale uu soo daahay. markuu soo daahay kadib iyadoo xanaagsan tookadan wax kale go-aansatay. waxay go-aansatay telefoonkiisa inay fiiriso asigaysan la hadin. markuu soo galay waxay ku tiri telefoonkaaga isii. markaas wuxuu yiri telefoon soo ma istkaaga ma isticmaashid. markaas wuxuu ku tiri may kaaga raba inaan isticmaalo ee itus. markaas uu yiri way hoo isticmaal. markaas wuxuu tiri password-igana geli. password-igu geli. markaas uu maxaa fiirinaysaa? markaas waxba kaaga magal. waa qaado qol waxay bilaawday markii facebookiisa inay gasho, snapkiisa inay gasho, text message-diisa inay gasho oo telefoonka meel walba ay gasho. si wax u raadinaysay wax waa soo waysay. ninkaa wuxuu ku yiri hadda ma qanacday? markaas tiri may ma qancin waxaa umaleynaya inaa soo tirtirtay. ninkii wuxuu ku yiri intaan ka badan ma aqaano waxa aan samaynayo. almuhim gabadha weli ma degin ma qancin wuu iska baxay. habeenkii wuu soo daahay. gabadha waxay tiri marka waxaa jira kusoo dahdaahoysid. almuhim ninka marka dambe khalaas waa asina umuusan jawaabin. maalin dambe iyadoo xanaagsan oo si walwalsan saaxiibteeda u timid. markaasay tiri maxaa dhacay? markaasay sheekada aga sheekaysay. markaasay waxay tiri nimanka wax way tirtiraane hadduu ku jecel haddii kale waxaa kula dareemaysaa hadduu markuu yimaado isxanaaji kuleetiga ku dheh ifur dheh. hadduu meesha kugu furo macnaheeda waxaa waaye qof kala diyaar ahayd. hadduu ku barbaryane macnaheeda waxaa wuu ku jecel yahay oo mee qof kale lama socdo. gabadhii miskiinta hayay tiri ninka habeenkii shaqada ka imaaday oo daalan ayay qayla bilowday. ha saanaa tahay khayaana igu wadaay. buugaa loo furi meeshaan khaa-inaa tahay waa iga soo daahday. marka hore ay jeclaa jirtay cunug markaa dhalisaan waaye gurigu waa igu daysay cunugii lama qabatid hooshii lama qabatid. almuhim list intaa leegaa loo furay. ninka marka dambe wuxuu yiri aniga waa soo shaqeeyay marka imaadan wax waa kula qabtaay faraha iga qaad. ma jirto markii qaylada ku basxuur okay waa baxay dhaaf. way boodi albaabka istaagtay marka kuleetigii ku dhagtay. waxay tiri wallaahi billaahi tallahi ma baxaysid inaa ifurtid maya si kale kuma baxaysid. war idaa lagama yaabo maxaa rabta inaa ifurtid? waayo hadhow waa ku furay dhaaf. maya inaa hadda ifurtid waay. walaahi ballan waa ku furaa idaa may hadda ifur. saas miyaha waa furantahay faraha iga qaad. gabadhii markii la furay oohinay bilowday iyo qaylo. markaasay tiri haa khaa-inaa tahay marka hore meelaa kuu calaameysneed waa lii sheegay. marka horeba waa lii sheegay anigaa doqon ahaa. adilo hadda soo iguma dhigay ifur maydhihino waa ku furay maxaa kaloo hortahay? ma jirto waa ifurtay khalaas waay faamilkayga haddii iigey. wuxuu faamilkaaga aadina gurigaan joog ma jirto. ninkii wuu baxay guriga dhan uu ka cararay.
waalidkeedii faamilkeedu wuxuu ku yidhi gabadhii waa isqabsanay arrintaasaana jirto ha loo yimaado. isla markiiba gabadha hooyadeed iyo aabaheeda u imaadeen, way wareysteen. gabadhii maray qayliso iyo maray xoog u hadasho wax ma sheegayso. gabadha hooyadeeda waxay ku tiri odayga ordad iskaad ilmaha u tag, aniga gabadheeda caawo intaan sii xaniinay. hooyadii marka gabadheedii wareysatay, gabadhi wixii dhaani u sheegtay. hooyadiina subax way tagtay, iyadana xaajigeedii usoo sheegtay gabadha aabaheeda. waxaa meesha la ogaaday marka gabadhan meesha inaysan waxba ku haynin, ay kulli shaki iyo tuhum ay tahay. habeenkii sheegtay iyo wax telefoonkiisa inay baartay. odayga markii dambe wiilkii uu la hadlay oo wuxuu ku yidhi adeero, gabadha way ku jeceshahay, waxaysan u sameynaysan jeceyl waaye, haddii kaa soo dhammaatayna ii sheego khalaas dhib ma jiro, haddaysan kaa soo dhammaanin gabadhaa la hadlahe ii sheeg. wiilku wuxuu yidhi adeero, haddii iga soo dhammaan lahayd buuqaas dhan mana galeen, mana kusoo wici lahayn, laakiin gabadha waa ka degi waaye, waa ka seexan waaye, cunta waa ka cuni waaye, shaki iyo maseer aan macno laheenaa ku jiro. aabihii wuu qosli, wuxuu yidhi wax dhib ma lahan, aniba hooyadeeda saasaan kusoo haye, anaa lasoo hadli doonay gabadha isug. aabihii gabadhiisu u yimid, wuxuu yidhi hooyadaa wax walba way ii sheegtay, gabadhayday waa qaldan tahay, hal waxaan kuu sheega, waxaa marata maseerka inuu kaa baxo. markaasay tiri ha, sheeko fiican aan kuu haaya u dhahay. ii sheegay tiri aabbo. wuxuu yidhi khalaas waa yahay, berri ninkaaga 3 naagaa u dhima, 3 naagaan ku dirina, maseerka waa kaa baxa. gabadhii qaylo, aabbo ma waanan tahay, maxaa samaynaysaa, naagaan diidaya, adina 3 maartayna u dhamaystay. markaasuu yidhi saas way xaalka, 3 naagaan u dhamaystirina, maseerka wuu kaa baxa. gabadhii waa oysay, aabbo maxaasaan ugu gelaysaa, xaraam calayk, maxaa dhacaysaan? markaasuu yidhi okay, adii suma diiday inaa haysid, wallahi waa haysana. diyaar rumaa sheegaysa, wallahi mar kale telefoonkiisa ma raadinay. gabadhaas xunta hebla la yiraha been ii sheegtay, iyadaa gurigii burburisay, xal dhan waa fikira hooyo markii caqli celisay, wuxuu qalad ugu sameeyey malahan, shaytaana ay qaaday, khalaas waaye, mar dambena kama masiiraayo, waxna lama hadlaayo, farahan ka qaada. aabihii ninkii usoo noqday marka wuxuu ku yidhi adeero, gabadha waa diyaar, soo bax suuqaan tegaynay, hadiyaan soo gada anigoo aabaheed, adigaan kuu dhiibaa, adiga sii. wiilku wuxuu yidhi may adeer, anaa soo gadaayo. aabihii wuu dhaartay, wuxuu yidhi wallahi anaa soo gadaa, gabadheed waxay jeceshay waa garana, silsilad dahab iyo jeclaan jirtay markii yareed usoo gaday. wuxuu ku yidhi ninkii wuxuu yidhi hoo u dhiib waa kane, waxaa tirahay waxaa jeceshiid xataa waa aqaanaa, hadiyidaadani waa tani. wiilkii iyo gabadha aabaheeda wada socdeenaa imaadeen. gurigan waxaa jooga gabadhii iyo hooyadeeda, gurigoo la diyaariyey. ninkii wuu yimid, gabadhii iyo hooyadeeda is ag fadhiyaan, wiilkii aabiyaa soo galeen. aabii wuxuu ku yidhi wariyaa orod xaaska soo raaligeli. ninkii wuu yimid, xaaskiisu madax ka dhankooda wuxuu yidhi raalli ahaaw, hadiyadana waa kuu keenay. silsiladii fiiris, maxaas ugu fiirinaysaa? waxbay tiri waa ogeer silsiladaa jeclaan jirtay waaye, mar horaa rabeen aan kuu soo gaday, laakiin duruufta ii diidaysay, hadda waa kuu soo gaday. almuhim gabadhi sidii ugu faraxday. habeenkii marka wanaagaas uu ku dhammaaday. hooyadii aabihii marka wiilkii waaniyeen, gabadhiina waa waaniyeen. meeshaa laga wada casheeyey, hooyadii aabihii gacanta isqabsadeen, waa baxeen. ninkii iyo xaaskiisane guriga laga tegay. sidii ayay ugu bilaabatay nolol cusub oo wanaagsan oo farxad ku dhisan. saan qisada bilowgeeda kugu sheegay, qisadan waa qiso aada u faa'iido badan, cibro badanna laga qaadanayo. waxaan rabaa faa'iidooyinkeeda inaad soo qortid. intaada soo qorin laakiin waxaa ka jawaabtaa 2 su-aal. su-aasha koowaad, gabadha waxay samaysay sax miya mise qalad waaye? su-aasha labaadne, wiilka wuxuu sameeyey sax miya mise qalad waaye? adiga fikrada adoodan qof tuhmaynin maxay kula tahay kasoo jawaab. faa'iidada koowaad waxay ku socotaa gabdhaha walaalahii. waxaan rabaa inaan ku dhaho shakiga iska saar. shaki iyo gurigaaga burburinin. hadal gabar ay kuu keentayna gurigaaga iyo burburin. hadal qof kale kuu keena gurigaaga iyo burburin. gurigaan adigaa iskale, personality yaa leedahay, ilaahay ibni aadan uu kaa dhigay, caqliyaa leedahay, maskaxuu ilaahay ku siisaa u fikirtid. qof kale wuxuu sameeyey ama wuxuu kuu sheegay ta'thiiriyuu kuu sameynin. waxaadaa ka shakisid, hubi intaadan tilaabo qaadin. tilaabo intaadan qaadinne ka fiirso, tilaabadan maxay keenaysaa? dhibaato may keenay mise waxay hagaajinaysaa mise faa'iiday keenaysaa? haddii faa'iido keenayso samee, haddii wax joojinaysa ama wax hagaajinaysana samee. laakiin haddii dhibaato keenayso iska ilaali ee ha sameynin. faa'iidada labaad, gabdhaha lay ku socotaa. ninkaaga social mediahiisa ama telefoonkiisa ha fiirinin. marar badanaan kasoo hadlay,
haddaa fiirisid dhibaato le kaaga imaanayo. hadda gabadhan fiiri telefoonkiisii qaadatay way ceebooday soomaa waxay ka raadinaysay waxba kamaysan helin. haddii wax ka heli lahayd maxaa dhici lahaa? dhibaato kale le dhici lahayd. gabar ay aragtay sawirkeeda ama risaalo loo soo qoray aragtay buuqaa bilowday, maxaa waaye ninkii inuu been sheego ama inuu yidhaaha waaba la socday waa guursaday. labada marba faa'iido kuguma jirto. telefoonkiisa asiga iskale faraha aga qaad. adiga wax ku khuseeya waxaa waaye tacaamulka. ninka intaa wada joogtaan inaad tacaamushaan si wanaagsan u tacaamushaan. laakiin yaa la hadashay, halkee jirtay, yaa salaantay, yaa like u saartay facebooka, yaa comment u qortay, iska daa khayr allah ku siiye. dhib unbuu kuu keenaa. wallaahi billaahi tallaahi khasaara maahine faa'iida kama helaysid. hadalkiiga maqal. walaalkaa oo qalbigiisa kaawaaninaya ahay. inii laki naasixun amiin. ee hadalkayga qaado. ninkaaga telefoonkiisa iyo hadalkiisa gooni iska dhig. adigii asigii si kale u tacaamula. haddaa ka shakisid si tartiib u wareyso ama si tartiib u hubso, laakiin telefoonkiisa wixiisa faraha ka qaad. faa'iidada saddexaad nimankay ku socotahay waxaa loo baahan yahay xaaskaaga ina ixtiraamtid. waxyaala qaarkoodana u explain garaysid. matalan haddaa shaqada kasoo daayayso udha shaqadan kusoo daaha wax dhib mala. xaaskaaga waa adiga guriga kuu joogtaa, adigay ku sugaysaa, cunugaagii haysaa. markaa soo daahaysid inaa u sheegtid intaadan soo daahin tiraahdo kor caawa waa soo daaha, waqtiga hore kadib aa imaana. wax wanaagsan waaye. lana communicationka wax unbuu hagaajiya ma wax ma burburiyo. laakiin haddaa adigoo lasoo hadlin oo socotid timaadid waxaa laga yaabaa inay iidana shakiso. marka shakigaas ka ilaali. qofka markaa usoo socotay waqtigaasaa imaana. haddaa wax isku ogeediin waaye waqtigaasaa imaana inaad tiraahid waa wax wanaagsan. sidii jaceylka gurigaaga iyo wanaaga iyo qalbiga gabadhaada xaaskaaga u ilaalisid ku dadaal khayr allah ku siiye. faa'iidada afaraad waalidiinta wanaagsan dhaqanka lagu yaqaani waa kaase. ninkan hooyadii aabba isla habeenkii gurigay imaadeen. hooyadii gurigay joogtay, gabadhii u caqli celisay. aabihii asigana markii hooyada sheekada u keentay wiilkii la hadlay oo markaa soo dhamaatay. iska hubi markuu run waayo waxaa laga yaabaa inay kasoo dhamaatay waani waxba isku tarayninbo. markuu ku hubsaday inaysan uu rabo wili gabadhiis xaaskiisa uu rabo ogaaday wuu waaniyay. fiiri wuxuu ku yiri gabadhaada waa ku jeceshahay, adin waa jeceshahay. gabadhiisu u yimid, gabadhiisu u caqli celiyay. cumar al-khataab sheekadiisa way markuu maqlay xafsa rasuul sallallahu alayhi wasallam dhibto gurigu ugu yimid wuxuu yiri jooji waxaa sameynaysid. haddaa wax u baahatid aniga i weydii, rasuulka ha weydiinin, rasuulka ha dhibin. wax kasta u baahat ani i weydii uu ku yiri. ee rasuulka dhibka ka dhaqa ka ilaali. haddaa dhibtidna waxaa laga yaabaa inuu ku furo gurigaagana burburo. waalidkan qiimihiisa fiir runtii waa jeclaaday. xataa hadiyada asigaa soo gaday. waalidka waxaa weeyaan qof taariikh aqriye waaye. cumar ibn khataab sheekadiisuu sameeyey. asigaa wuxuu soo gaday, dahab uu soo gaday. wuxuu ku yiri waa kane adiga sii, anaa soo gaday ma dhihin. wuxuu ka dhigay wax ninkeeda uu soo gaday lacagtan aabaha gabadha aabaheeda bixiyay. waalidkan qiimihiisa fiiri. waa waalid wax aqriye cilmi leh waaye. wiilkiina wuu waaniyey, gabadhiisana wuu soo canaantay. wiilkii u soo noqday, asigaa hadiye gaday, gabadha u geeyu dhahay. waxaas dhan wuxuu u sameynaya waxaa waaye guriga gabadhiisa inuu hagaajiyo. saasaa loo baahan yahay. aabaha saasaa laga baahan yahay. waalidka wanaagsan saasaa laga baahan yahay. hal wax ogaada, guri aan khilaaf ka dhex dhacaynin ma jirto. ama khilaafka ha yaraado ama ha weynaado. laakiin waxaa loo baahan hadduu khilaaf dhaco in horta marka hore usir ahaado banaanka usuu soo bixinin. tan labaad waxaa loo baahan yahay idinka inaa xalisaan sida ugu dhaqsaha badan. haddii kale waa weynaana. waxaa waaye meel boog yar ku taala haddii la daawey waayo maxaa ku dhaca waa weynaani ilaa meesha dhan ay qabsato. hadduu khilaaf yar soo gaalo ama mushkilo yar ay timaado ha la xaliyo intuusan weynaanin. si degan oo caqli iyo xikmo ku jirtana ha loo xaliyo. faa'iidada lixaad, toddobaad, sideedaad, sagaalaad, tobanaad adigaa laga rabaa. soo qor khayr allah ku siin. hana iloobin su-aalooyinkiina kasoo jawaabtay. jazaakum allahu khayran. baaraka allah fiikum. waynoo jimcada soo socota iyo qiso cusub. ilaa jimcada soo socota la gaara waxaa laga rabaa dhageyso, ka faa'iideyso, ku camalfal. walaalaha kalene usii gudbi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.